والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan halkan ugu yimi safar shaqo maalintii Isniintii waxay la socday oo Nairobi aan ka wada nimi wasiirka qorsheynta qaranka. halkan waxaan ku kulanay wasiirada Soomaaliland yimi wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka gaashaandhigga. safarka iyagu wuxuu ahaa safar aan ugu talagalnay inaan isku baranno madaxda Itoobiya maadaama intii lay magacaabay aniga aan imanin safkii ugu horeeyay buu ahaa. waxa kale oo nimi inaan ka wada hadallo arrimo badan oo inaga dhaxeeya Soomaaliland iyo Itoobiya ka dhaxeeya. waxa kale oo aan nimi inaan kormeer ku sameeyo xafiiska Soomaaliland Addis Ababa Itoobiya. saddexda ujeedada runtii ay ahayd intii aan joognay waxaan aragnay wasiiru dawlaha arrimaha dibadda. wasiirka arrimaha dibadda ma joogo marka waxa halkiisii aan kala kulanay wasiiru dawlaha arrimaha dibadda si wanaagsan ayuu noo soo dhaweeyay oo waji furan. waxaan ka wada hadalnay amuuro fara badan oo dhinaca dhaqaalaha, dhinaca iskaashiga xagga nabadda, scholarshipska, arrinka viisada waa ka wada hadalnay. marka amuurahaas oo dhan si fiican baan isla afkaranay iyo ahmiyadda ay leeyihiin in halkaa laga sii wado cilaaqaadkii naga dhexeeyey lana sii xoojiyo. arrinkaas wuu jiraa, waa runtii kulan qabanqaabadiisu ay ugu horreysay inkastoo marka dambe aan wax ka bedelay muddadiina aanu dheeraynay. wuxuu noqonayaa kulan 5 casho ah. 3 casho hore waxaan ugu talagalnay inaan ku tababaro danjirayaasha shaqadooda. had iyo jeer waxaa lasu magacaabay jagooyinka iyadoo aan qofka lagu tababarin tababar horena aanu lahayn waqti ku qaadato intuu la qabsanayo. 2 casho dambe waxaan munaaqasho ka geli doonaa, la falaqayn doonaa, la faguri doonaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland. ka 2 casho dambe shirku ku ekaan maayo danjirayaasha kaliya, waxaan ka soo qayb gelin doonaa xubno ka tirsan baarlamaanka iyo xubno ka socda axsaabta.